Cududa wax soo saarka iyo labeenta dad iyo dal lagu horumariyo waxa kow ka ah dhalinyaro jihooba daacadna ka noqda wuxuu qabashada dadkooda iyo dalkooda waana furaha horumarka iyo horudhaca guusha nasiib badanna waxa hesha madasha koobsata dhalinyar mutadawiciin ah oo maankooda maskaxdooda iyo cududoodaba u hibeeya inay horumariyaan deegaankooda haddaba magaala madaxda Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto magaalada kaliya ee Jamhuuriyadda Somaliland ee dhalinyartooda si iskaa wax u qabsa ugu shaqaynayaan isla markaasna ay horumarinayaan bilicda magaalada iyo weliba baahiyaha kale bulshadu tabayso waana cudud lama jirto oo magaalada Burco ay dheer tahay magaalooyinka kale ee Somaliland walow magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer aanay haysanin mas'uuliyiin tartami kara heer degmo iyo heer gobolba una babacdhigi kara dhigooda gobolada iyo degmooyinka kale ee dalka haddana magaalada Burco waxa uu kacay dhalinyaro cududaha iskeliyo ay ka mid yihiin dhalinyarada iftiimi Burco oo iyagu ah kor u qaadayaasha iftiinka iyo bilicda magaalada Burco waxaana labeeya koox kubadeedka xidigaha Burco oo iyagu magaca magaalada xidigaha sare ku tolay tacab badan geliya isdhexgalka ciyaaraha iyo kor u qaadida kubadda cagta waxaana saddexeeya dhalinyarta qaadatay magaca Naladhis oo nala dhame kuwaas oo iyaguna qayb ka ah soo noolaynta ciyaaristii kubadda cagta ee magaaladani caanka ku ahayd kuna fogan hirgelinta garoon casriya la dhacsanaanta hawsha ay dhalintani deegaankooda u qabanayaanna waxay hurdada ka toosinaysaa boqolaal kale oo dhalinyaro ah waana dhiiranayaal buuxiyey booskii ay baneeyeen mas'uuliyiintoodu heer degmo iyo heer gobolba waxayna hiilbideen qurxinta qaabaynta iyo horumarinta gobolkooda haddaba si aanu bulshada u horkeenno dhalinyartan mutadawiciinta ee waxtarka ka geystay gobolkani Togdheer ayaanu magaalada dhex qaadnay waxaanaanu tooshka ku ifinay meel kasta oo aanu ka heli karaynay barbarkayga waxa taagan daawadayaal Khalid Bakayle waa mid ka mid ah suxufiyiinta da'da yar ee ku dhaqan caasimada magaala madaxda caasimada labaad ee Burco xarunta gobolka Togdheer waxa uu sidoo kale ka mid yahay dhalinyarta iftiimi Burco ee guluubada asaas u shiday magaaladan Khalid waxaynu ag taaganahay laambadii magaalada u shideen bal ka waran mashruucan iftiimi Burco sidee ayuu ku yimid maxamed Ander hadii aan faahfaahin kooban aan ka siiyo barnaamijkan runtii wuxuu buu ahaa barnaamij iska wax u qabsaa kaas oo ugu yaraan aanu ku tusinayay bulshada in hadii laga faa'iideysto awoodda dhalinyarinimo oo si qoman looga faa'iideysto in la sameyn karo wax qabadiyo kala duwan kuwaas oo ay bulshadu u aydo runtiina insha Allah ta'ala waxaan wadnaa qorshayaal kala duwan kuwaas oo aanu qayb kaga noqonayno horumarka magaalada soo kale waxaan u mahad celinaynaa bulshadii kala duwaneed ee Burco ee markaan u tagnayno barnaamij caynkaas baan wadnaa niyadda iyo laabta furan runtii nagu soo dhaweeyay mubaarigow barnaamijkiinu ma ku koobnaan doonaa iftiin kaamiso waxa jira qorshayaal kale oo aad magaalada la doonaysaan inaad ku horumarisaan maxamed ma hasan tahay horta dhalinyaro marka la yahay ama kelmadda dhalinyaranimo marka la qeexayo yaani awoodda u dhaxaysa caruurnimo iyo ciroolanimo ilaahay quwad buu ku sheegay dhalinyaranimo qoladan gaaladuna waxay yiraahdaan golden age buu ku jiraa qofka dhalinyarada wuxuu ku jiraa age-ka dahabiga marka wuxuu koobsaday in ilaahayna awood uga marxaati kaco qofka ku jira xaalad ahaana uu maskax ahaan iyo muruq ahaanba ay tahay xaaladda ugu xoogaya fariinteedu waxay tahay marka dhalinyaro waxay qaban kartaa ma ahan leer la shiday ma ahan dhir la beeray laakiin waxay hogaamin kartaa ummad dhanbay qiyaado u noqon kartaa hogaamin kartaa yaani in heeriyada la iska tuuro da'ta koorka loo tafaxaydo gundiga dhiisha la isaga dhigo sidii waxaan ku wari iftiimi Burco barnaamijkan uu tusaale ugu noqon lahaa oo ujeedada ugu weyn aanu lahayn ay ahayd inuu tusaale u noqdo in dhalinyaradu wax qaban karto oo awoodda dhalinyaradu inay soo saari karto aragti iyaga ka soo maaxatay kadibna ay midho dhasho ay socoto daawadayaal haatana waxa barbarkayga taagan guddida qabanqaabada garoonka Naladhis oo nala dhame oo iyaguna ka mid ah dhalinyarta sida mutadawacnimada ah ugu shaqaynaya magaaladani Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaan wax ka weydiinay bal fikirkooda ku aadan arinta dhismaha garoonkan ay wadaan oo ah runtii mid qarash badan iyo dhaqaale badan ku baxayo cid ka caawisa iyo waliba ujeedka ay kala yihiin haddaan kaaga warramo maxamed oo hawshan aan gacanta ku hayno ka guddi ahaan Naladhis oo nala dhame waa hawl mutadawacnimo oo aanu ku bilownay iska wax u qabso waana lagu tala galnay markii horeysay in dhalinyarada gobolka Togdheer aan tusno inay kaligood wax qabsan karayaan kaligood maganaasa wax wada karayaan
hawshaasoo aanu magaranaysa hawta faa'iidanay labadii bishii labaad ee 2019 iminkana ay taariikhdu marayso bishii 8aad intaasoo dhan aan wadnay aananu ka daalayn hawshaasaan ugu talagalnay inaan ku dhammayno saa aanu ku bilownay bartilmaameedna ay noo ahayd nala dhis oo nala dhammee waxaan weliba hiigsanayna inaan garoomada kale gobolka oo dhan saa aanu kan u dhammaynay kuwa kalena u dhammayno aanu u bilowno qaar kaloo cusub maalmihii aan hawshan bilowgeedii aan bilownay dadku way nala yaabanaayeen waxay deeno arkeen dad iska ciyaaraya ama waxaan aan ahayn wax suurtagal ah in garoon inta baaxadiisu laag tahay awood inta laga dhaqaaleynta lagu baahanaa ay doonayeen wax badan baan nagala kulmay oo caqabado badana laakiin waxaan ku dhiiranay inaan hawsha dhameystirno oo aanu gacanta isu qabsano oo aanu dadka iyo bulshada tusno meel kasta oo ay joogaan in dhalinyaradu inay wax qabsan karto oo ay cid kasta wax u qaban karto kabacdina salaastigeedka sports ahaan ayaanu ka bilownay oo aanu garoon hiigsanay inaanu garoomada gobolka Togdheer u baahan yahay oo far badan inaanu dhameystirno daawadayaal baadigoobkaanu ku baadigoobnay dhalinyarta iyagu u dhaqdhaqaaqa gobolkani Togdheer ee ku fogan horumarka iyo waliba kor u qaadida ayaa haatan waxaanu hotelka Baabur Rayaan kula kulanay horkacaha ama horjoogaha ama hogaamiyaha kooxda xidigaha Burco oo iyadu kamid ah kooxaha ku fogan soo nooleynta isboortiga gobolka Togdheer ugu horreynna waxaan weydiinay ayaan le bal waxa ay kooxdiisu uga dhigan tahay inay gobolkan u shaqeeyaan si hagar la'aana walaal waxa weeye haddii aanu nahay tiimka xidigaha Burco waxa weeye waxaan u xilsaaranahay oo waajibaadkayga ah muhiimadda kooxdeeduna ay tahay kor u qaadista kubadda cagta gobolka Togdheer waxaan ku tashanay aanu u tafaaxaydanay inaanu haddii aanu nahay kooxda xidigaha Burco inaanu isboortiga gobolka Togdheer kor u qaadno dhalinyarta iyo da'yartana aanu sameeyno ku dayasho maadaama ay yihiin kooxdayada xidigaha Burco ay yihiin tiim u badan waayo arag oo in badan kusoo dhex jiray saaxadda kubadda cagta yaallow kooxdiinu waxay gacanta ku haysaa kooxo kale oo daayar u badan waxaad booqataan oo kale xarumo badan oo daayarta lagu tababaro kooxaha isku soo xiga arrintan ma cid baa gacan ku siisaa mise idinkunba isu xilqaamay ma jirto cid gacan nagu siisaa laakiinse annaga ayaa u tafaaxaydanay iskuna xilqaamnay maadaama aanu aragnay inaanu nahay indhihii gobolka Togdheer amba hormuudkii gobolka Togdheer kubadda cagta marka halkee ayaa doonaysaa arrintan inaad gaarsiisaan waad ogtahay maxamedow hadiya jeeraale tartamada gobolada sanadihii u dambeeyay gobolka Togdheer meela aad u hooseeyo ku soo hadhay sababtuna waxay ahayd tayo la'aanta sportska gobolka Togdheer ma liitaan ciyaartoyda gobolka Togdheer laakiinse waxaanay lahayn gacan qabad sidaa darteed ayaanu doonaynaa inaanu sanadaha soo soconnaa aan nooga dhex muuqanno garoomada iyo guulihii lagu yaqaanay gobolka Togdheer marka laga yimaado dhalinyarta mutadawiciinta waxa iyaduna horumarinta iyo bilicda magaalada qayb weyn ka ah shirkadda leydhka ee Heeko oo iyaduna ay ka go'an tahay wuxuu qabashada shacabka gobolka Togdheer iyo waliba qurxinta qaabaynta iyo iftiiminta magaaladani Burco waana mid ka dhex muuqda magaalada iyo bulshada dhexdeedaba adeegyada ay shirkadda leydhka ee Heeko u qabatay magaaladani Burco waa Maxamed Cabdilaahi Maxamed Andar iyo Maxamed Saciid Gaaxnuug telefishinka caalamiga badda 24 magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer